بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد كاسم فيدو oo had iyo jeer idin socodsiiyo barnaamijka tiknoolajiyadda maanta waxaan qaadan doonaa cashir ku saabsan sida aad u furan karto website xiran. For example, website-ka hadda horteena yaalo waxaa lagu magacaabaa waaga cusub.net. nin aad wada taqaanaan ayaa iska leh ee lagu magacaabo Daahir Calasow. YouTube-kiisa waa kana. Daahir Calasow website-yadan wuxuu ka mid yahay website-yadii ay xirtay wasaaradda warfaafinta. 30 website ayuu ka mid ahaa. Insha Allah tacaala maanta waxaan idin bari doonaa sida aad u korboodi karto website-kaas. waxaan la soo degi doonaa website lagu magacaabo oo software ama program lagu magacaabo Hotspot Shield. Hotspot Shield waxaad kala soo degi kartaa Google-ka. haddii kale waxaad kala soo degi kartaa website-kan aan ku sii doono. waxaa lagu magacaabo website-ka www.fileeagle la dhahaa. automatic uu soo baxay hore ayuu jiro. waxaad leedahay enter. waxyar baan sugi doonaa insha Allah tacaala ha dhameeyo saajin buu wadaa. markuu halkan u yimaado waxaan kasii dooran doonaa antivirus software. ku dhufo qadka ayaa iga yara culus. waxaa kasii dooran doontaa security software maadaama anaku aan u baahannahay security waxyaaba oo security la xiriiro aan sameyno. waxaan kasii dooran doonaa qaybta lagu magacaabo security software. meeshan ayuu ku jiraa software-ka aan sheegayay ee lagu magacaabo Hotspot Shield. This is Hotspot Shield. waa kana version-kiisa 5.0.4 aniga hadda uma baahni inaan la soo dego. waan haystaa, waan la soo degay. waxaan tegi doonaa computerkii ayaan gudaha geli doonaa. waxaan tegi doonaa downloads. waa kana hore aan soo degay. waan ku shubi doonaa habka loogu shubo ila soco. right click ayaa dhahaysa. haddii kale open waa dhihi kartaa run as administrator. laakiin waxa fiican markasta inaad isticmaashid run as administrator. waxaad ku rangaraysay sida qof administrator ah inta badan inuu falgaroobo installation-keeda ama duubitaankeediina ma dhacayso. run as administrator yes ayaan dhahaa. waan sugaynaa. waxaa leenahay install. waa kana unblock the internet-ka xiran ama website-ka xiran ayaad ku furan kartaa. internet is not open. Facebook ha ahaado, YouTube ha ahaado. For example, hadda ayaan dhexe markii la qabanayay doorashadii madaxweynenimo ee dalka Uganda gaar ahaan Kampala, wasaaradda warfaafinta waxay soo saartay in la xiro social media dhammaanteed. in social mediahaas laga xiray waad ku furan kartaa. Facebookaas ay ka xirtay dowladdu. Hotspot Shield ayaan ku suurtagelin doontaa inaad isticmaashid Facebookaada. Hotspot Shield shaqada ugu badan oo qabanayo waxaa waaye IP-ga waddankaas inaad qariso. inuu kaa qariyo ayaa loogu talagalay. tusaale ahaan hadda adiga Soomaaliya ayaa joogtaa. marka Soomaaliya website-kan waa laga xadiday in laga isticmaalo. shirkadaha internet-ka bixiya ee lagu magacaabo internet providers IP-gaas waxaa loo gudbiyey qoraal ah in ay xiraan website-kaas ka xiraan router-ka. automatic marka router-kii ayagu ay lahaayeen ayay waxay installation ku sameyn doonaan in website-yadaas loo sheegay ay xiraan. waxaana ka mid ah website-kan waaga cusub.net. finish. wuu noo dhameeyey. waa kana meeshan ayuu nooga baxay. waxaad ku furan kartaa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram iyo wax kasta oo la xiriira social media. haddii laga xiro waad ku furan kartaa automatic. aniga marka waxaan rabaa inaan wadamadan doorto. dhowr wadan waaye. wadamadan mid alaala midkaa rabtid ayaa IP-gooda saaran kartaa. waxaan dooran karaa United States. waxaan dooran karaa Australia. yes
laakiin aniga waxaan dooran doonaa United States hay ahaato America. markaan website-kan waad u jeedaa uu xiran yahay markii uu xirnaa, laakiin hadda markaan soo galo website-ka www. waaga cusub markaan rabo kana waad arki doontaa automatic gudaha ayaa geli doontaa. waxyar baan sugi doonaa refresh baan dhahay. waxyar ka bacdi website-kii automatic gudaha ayaad u geli doontaa. waan sugi doonaa, qadka ayaa aad daciif nooga Afrikaan joognaa, gaar ahaan Soomaaliya. meel oo ka galo ayuu raadinaa. waa yara sugeynaa. waa kana automatic website-kii xirnaa wuxuu noo geliyey gudihiisa. waa kana waxaa ka mid ah qoraalada aad ujeedid. waxaan gudaha ugu jirnaa website-kii nagala xiray. taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya oo iscasilay kadib markii madaxweyne Garguurte amaro yaab faray. oo ujeedaa website-kii nagala xiray. dimo jadiid oo dacaayad xoogan ku bilaabay Ra'iisul Wasaare Cumar. fanaanada xaawakiin oo hees garbaasha ku sagootiyey jaceylkeedii oo dadka ka qaaday. sidaan camal ayaa website-kii waa kana markii uu naga xirnaa. waa kana maantana waan furnay. sawirkii hore waa intaan ku shubinin software-ka Hotspot Shield ayuu ahaa. markaan Hotspot Shield aan ku shubnay website-kii uu noo furmay. website kasta ee lagu dhaho website-kan waa la xadiday, software-ka wuxuu kuu suurtagelin doonaa inuu ku furo. hadafka ugu weyn ee Hotspot Shield waxaa waaye in IP-gii waddanka aad joogtay oo kaa qarin. tusaale ahaan hadda aniga Soomaaliya ayaan ku noolahay, laakiin United States inaan joogo camal ayaan hadda u isticmaalaa internet-ka, waayo United States ayaa ii dooran khariidadii. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaas ayaan kusoo koobi doonaa cashirkeeni ku saabsanaa sidee loo furtaa website xiran.